inaan maaragtay aniga ahaantaydu intaan fikiro oo aan xilli walba macnaha igu qaadato ama inkastaba ay ila gaartee aan horta aan u guuro ama aan ka mid noqdo dadkan loo yaqaano dadka duurjoogta ah ama maxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa cawaanta. Deeqa Afro waa fanaanad marka aad magaceeda aad maqasho ay wax badan kugu soo dhacayaan. Hadda koor waxa ay si toos ah u sheegtay in ay u baahan tahay in ay haddii ay geeriyoto aan la aasin geed dushiisana la saaro, laakiin hadda waxay ka dhawaajisay arrin kale oo aan wax badan laga ogeyn. Meeqa magac ayay leedahay Deeqa Afro? Maxaa ka jira in ay horay u guursatay ama ay qabtaba nin qaawan oo cawaan ah cawradiisana aanan qarin? Sidee ayuu ugu baxay magaca Afro? Inta aan muuqaalka gudaha u galin waxaan ka codsanaynaa inaad like garayso siina share garayso muuqaalkani ay dad badan wax ugu ogaadaan arintani. Deeqa Afro waa fanaanad muddooyinkii u dambeeyay laga maqlayay hadallo mucjiso leh. Waxay sheegtay in magacyo badan horay loogu baxshay oo ay ka mid yihiin Cusbo, Harti Deeqa iyo magacyo kale oo badan. Sidee ayaa magacyadaas dhan loogu bixiyay? Bal ayada ha inoo sharax. Lii baxshay runtii anaa hadda ka xishoonayo oo wuxuu ahaa magac qabiil. Marka magac qabiil buu ahaa horta la iguma bixinin, wuxuu ahaa magac layla jeclaaday. Waa run magacaygaasna waxaa la oran jiray intaan Deeqa la oran ka hor waxaa la oran jiray Harti. Sidee ayay u aragtaa Deeqa noloshani caadiga aynu ku wada noolnahay annaga? Waxay ka dhawaajisay in noloshani ay tahay nolol maalayacni ah oo mugdi ah weliba, waxayna u bixisay nolosha buuqa oo ay sheegtay in noloshani ay tahay nolol buuq badan oo dhib badan. Maxay tahay sababta noloshani caadiga ah ay u nacday? Arrinta dad badan ka yaabisa ayaa ahayd in qof dhan uu jeclaysto in uu noqdo dadka cawaanta ah. Waxay tiri ayada oo hadlaysa, waxaan jeclaystay in aan ka wareego noloshani, aan u wareego nolosha duurjoogta ama aan ka mid noqdo dadka loo yaqaano duurjoogta ama dadka Soomaalida ay u taqaano cawaanta ah. Nolosha aan deganayn, nolosha bilaa xasiloonida ah, nolosha bilaa xasiloonida hanu baxshay. Nolosha marka bilaa xasiloonida aan ka hadlayaa waxay tahay waataynu hadda ku noolnahay. Sababta aan saas u leeyahay waxay tahay telefoon baa ku soo dhacaya, maxaan korto TV baa waxa ka soo galaya, war ka soo galaya, maxadeed babatatanba. Laakiin waxaan siri horta bal Deeqay haddaad maaragtay tan aad qofkii wixii intuu wixii maaragtay saluugo inuu haddana xal keeno waa muhiim. Marka waxaan siri bal xalkeen maadaama aad noloshan aad u bixisayba nolosha xasilooni darrada, bal nolol maaragtay tan dhaanta keen. Horta marka waxaan ku fikiray inaan maaragtay aniga ahaantaydu intaan fikiro oo aan xilli walba macnaha igu qaadato ama inkastaba ay ila gaartee aan horta aan u guuro ama aan ka mid noqdo dadkan loo yaqaano dadka duurjoogta ah ama maxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa cawaanta. Qof walba oo inaga naga mid ah isweydiinaya maxay tahay sababta ka dambaysa oo ay noloshaasi u doorbidaysaa? Maxaa sababay in qof dhan oo islaam ah uu doorbido nolosha caadiga nolol ka duwan, uuna jeclaysto in uu xirto caleemaha lagu xirto ama caleemaha cawrada lagu asturo kaliya, uu jirkiisa qofka intiisa kale uu qaaban yahay ama uu banaan yahay? Qof walba oo muslim ah haddii uu iimaankiisa daciif yahay waxaa imaanaysa ama daciifu waxaa imaanayso in uu ku fikaro waxyaabo aanan macquul lahayn. Laakiin Deeqa waxa ay sababaynaysaa sababta ay u dooratay in iyadoo islaama ay doorato nolosha duurjoogta ama dadka loo yaqaano cawaanta ah. Waxay tahay telefoon baa ku soo dhacaya, maxaan korto TV baa waxa ka soo galaya, war ka soo galaya, maxaan ku idhaahayay gaari baad wadataa, diyaarad baa wiifle, dhar baad qabtay. Ay tagtay dalka Indonesia si ay riyadeeda u rumayso, ayada oo raadinaysa nolol ka duwan midda caadiga ah oo aan wax dhar la xiranaynin, kaliya caleemo la xiranayo oo uu qofku qaawan yahay, taas oo ah dhaqanka dadka cawaanta ah. Laakiin ayada waxay ahayd riyadeeda ay jeceshahay in ay mar un rumayso. Ayada oo hadlaysa ayaa tiri, waxaan tagay Indonesia anigoo halkaas ka helay dadkii aan raadinayay ee cawaanta ahaa. Inaan qiimeeyo horta xagan ka heli karaa marka xagee macnaha waxaan ka suurtagali karaa, waxaan hadda maskaxda iiga jirta oo iiga guuxaysa xagee ka suurtagali karaa. Adigu sheekadii sii waday waxaan marka hadda ka hor aan dhowr jeer tagay dalka Indonesia ayaa waxaan tagay dhowr jeer. Marka dalkii markaan dhowr jeer tagay ayaan ka helay, waxaan ka helay macnaha dadkooda miyiga kale waa dad free ah oo maaragtay dhulkuna waa dhul qurux badan. Marka meeshaas horta waxaan sida aleelehe
noloshan aad sheegaysid oo degan oo bilaa buuqa ah oo maaragtay qofku duurkiisaas isaga jiro oo laba maaragtay caleen midna hoos lagu xiranayo midna kor lagu xiranayo oo aan maaragtay lahayn koronto iyo balaaye iyo cunno maaragtay. laakiin waxaa igu adkaatay sidii aan ugu dhex noolaan lahaa sababtoo ah suuragal ma ahan in aan inta iska dhex tago aan ku dhex noolaado. si ay ugu fududaato in aan ku dhex noolaado waxaan go'aan ku gaaray ama aan go'aansaday in aan ka dhex samaysto lamaane ama qof i guursada aniga oo ka mid ah dadkaas cawaanta ah. muddo markaan iska daba jiitamayay ayaa waxaa igu adkaatay in aan helo qofkii aan u baahnaa. at least wixii iiga suurtageli karaa laakiin yahow waxaan maskaxda haddana ku soo dhacday dee keligaa meeshaas ma aadi kartid way kugu dhib badan tahay dee qof keligiis meeshii aaday ma taqaanid maxaad samaysaa. marka waxaan markaa haddana doorbiday inaan lamaano yeesho. lamaanihii marka halkan haddii aan iraahdo qof halkan jooga ama meel kale joogaan inta kaxeeyo ayaan maaragtay u geynayaa maaragtay dadkaas cawaantaasaan ka mid noqonaynaa way nagu adkaanaysaa. marka maxaan sameeyey waxaan doorbiday in aan meeshii aan ka helo lamaane in anagu ka helo. taas baa haddana sii adkaatay. maxay ku adkaatay waxa weeyaan dadkii aad ba waxa u adag in lala kulmo dadkan maaragtay. laakiin waxaa dhacday in aan CV-gayga u gudbiyo dadka halkaasi ku dhaqnaa muddo kadibna waa ay ii soo jawaabeen anigoo la ii soo diray 22 nin ama 30 nin oo sawiro ah oo kala duwan si aan ugu dhex xusho kii i qanciya. laakiin arrinta mucjisada ayaa waxay ahayd in aan ka dhex helay nin aad moodo faras quruxdiisa iyo joogiisa. marka waxa dhacday marka ilaahay amarkiisa sawirada anoo fiirsanaya oo isla dee haddaabad maaragtay noloshii dhinacaas aad ku abuuri lahayd waad gaartay xilligeedii oo ku dhacday nin maaragtay cajiiba oo Soomaalidu waxay u yaqaanaan dadka quruxda badan faras. wallaahi faras buu ahaa ilaah baan ugu dhaartay. sawiradii wallaahi ma wada daawan sawirada inaan sii wado oo daawado bay ahayd man daawan. waxaan sameeyey waan joojiyey meeshii baan ku joojiyey isaan ku noqday haddana waan fiiriyey dadkii ii soo diraan la xiriira waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay qofkaas weeye. kadib waxaa dhacday in aan kulanno markuu islaamay waxaan dareemay in uu yahay ninkaygii dhabta ahaa ama ninkii aan guursan lahaa. maxay tahay waxa ay deeqo ku fashay ninka cawaanka ah ee cawradiisa caleemaha kaliya ku qarsada oo aan wax dhara xirnayn? bal ha inoogu jawaabto marka. waxbaa lagu meel ka abaaraa. waxaan anigu horta ninkan waaniga kule jawigii anigu aan jeclaabaan halkaa horta ka raadiyey oo aniga meesha aan ku noolaan lahaa iyo jawigii iyo dhulkiibaa horta ii geeyey markii ugu horeysay. tan labaadna dee Soomaalidu waa walaaladay waxa weyn waa dee waa Soomaali anaaba Soomaali aba Soomaalida raggeedana rag ka wanaagsan ma jirto walaalo. laakiin muhiimaddu waxay tahay waxaan isiri ayara kaftame qofka Soomaaliga ah wixii kuma adkaysto wixii waxaan isir 5 sano markuu kula noolaado ama iska soo noqdaayo isirahada maartay soo daala. marka dad xoogaa serious ma nihin saasa keentay xoogaa inaan baadiye lama geyn karo qofkii maartay Soomaaliga haduusan awal joogi jirin nolosha lagama bedeli karo. أنا waxaan ku talagalay inaan nolosha si toos ah macnaha ay suuragal ku noqon kartaa in ay iswaafajiso nolosha ay ayada markii hore ay ku jirtay sababtoo ah ayadu waxay ahayd qof dhar xiran oo dhaqan iyo diin leh dadkaasina waa dad cawaana oo aan dhar xirnayn lehna dhaqan ayaga u gaara sidee ay suuragal ku tahay inay isfahmaan ayada iyo ninkaas maadaama aysan is-afgaranaynin ninka cawaankana uusan aqoonin luqadda Ingiriiska iyo af kaleba oo ayada fahmi karto waxa ay sheegtay in ayada iyo ninka kale ay isfahmaan ninka aan jeclahay cawaanka ah faraha ayaan ka sheekaysanaa hadda luuqad kale oo aan isku fahmayna ma jirto ayay tiri jacaylkuna indha ma lahan dhagana ma lahan afna ma lahan dhaqanna ma dambayn su'aal la weydiiyay oo ahayd ama hadal hadda ka hor ay tiri oo ahaa in geed dushiisii la saari doono marka ay geeriyoto in ay ka tanaasuleyso hadalkaasi iyo inuu sidiisa u taagan yahay ayaa waxa ay tiri Soomaaliyeed baanahay adduunkan waxaan u jecelahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u jecelahay kale maaragtay codsigooda ama waxyaalaha ay soo jeediyaan ma diidi karo wax dhici karta ma ahan de grateful kuna wax iska ahaade ya waska markaa dhulkan u soo degay Soomaalida wax la qaba